Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan daawanaynaa cashadii loogu talagalay Ramadaanta. Afurka ka gadaal cashadii la cuni lahaa. Cashadaasoo aan ka sameeyay chicken leg. Adiga dhowr xabo chicken leg ah. Wax yar oo saliid saytuun iyo saliid kale aan isku daray. Waxaan ku daray alaabtii lagu dari jiray oo carfinaysay oo suubka ahayd iyo xawaashiyadii ayaan ku daray. Kadibna wax yar ayaan ku walaaqay maxaa yeelay waxaan rabaa in chickenku wixii lagu umatayn jiray oo korkiisa galo. Kadib basal ayaan ku darayaa. Qudaartiisii bariiskaas lagu macaanin lahaa oo dhan ayaan rabaa inaan ku daro. Waxaa ka mid ah basasha, tuunta, kabsar caleen iyo yaanyo. Markii aan yaanyadii ku jaray kadib waxaan ku daray oo kaleeto oo korka uga daadiyay xawaash. Ugu dambeyn xawaashkii aan korka uga daadiyay carfin lahaa. Kadibna waan daboolay. Cashada waxaan ku karinay waa digsi ovenka lagu gelinayo. Ovenkaan bariiska ku karin doonaa caawa. Bariiska oo dhan waa ovenka. Kor ma bal ku karinba. Hadda suugadii ayaa ovenka geliyay. Hal saac kadib waxaan soo saaray suugadii oo bisil oo isku dhintay iyada dhan. Kadibna waxaan ku daray 2 koob oo biyo ah. 2 koob markaan ku daray gudaha ayaan gashay u ceshay laakiin markay kareen baa waxaan ku daray bariiskii oo ayagana 2 koob ah. 2 koob oo biyo ah iyo 2 koob oo bariis ah waxaan isku daray. Waa casho aad u macaan kuna fiican Ramadaanta u dhadhamaysa dadka soomanaa. Waa sii karinayaa si aad cashada uga dhigataan. Bisha Ramadaanka cashooyinka ovenka lagu kariyo macaan yihiin. Ovenka hadda dib ugu celiyay si bariiskaasi u umataysmo. Hadda bariiskii waan ka soo saaray ovenkii. Hal saac kadib baan ka soo saaray. Wuxuu noqday sidaas aad arkaysaan aad u qurux badan yahay bariiska. Marka waxaan rabaa inaad ii saartaan subscribe, aad ii saartaan like-ta, share-ta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.